الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. maanta waxaan ka hadli doonaa geerid ayaan markaan ka hadli doonaa. walaalayaal, geeridu waa xaq weeye oo naf walba way dhimanaysaa oo naf walba waxay markaa ay dhadhamin doontaa geeri ayay markaa ay dhadhamin doontaa oo markaa naf walba waxaa markaa loo baahan yahay geerida xasuusideeda inay markaa ay badiso ayaa mar walba loo baahan yahay. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وحو يراهدي أكثروا ذكر هذه من اللذات يعني الموت oo waxaad badisaan midka macmacaan kala gooyaha xasuudistiisii badi buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam oo markaa loola jeedo geerida markaa loola jeedo oo mowdka markaa loola jeedo. walhada ruux walba wuu dhimanaya, ruux walba waxaa sugaya qabri ayaa markaa sugaya, ruux walba waxaa sugaya geeri ayaa markaa sugaya. walihada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaahday oo waxaa la weydiiyey fa ayu lmu'miniina akyas, mu'miniinta kuweeba ugu caqli badan ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu yidhaahday akharuhum lilmowti dikraa, kuwooda badiya geerida xasuusideedii markaa badiya, kuwaasi ayaa markaa ugu caqli badan buu yidhahday nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu markaa uu ku tilmaamay. marka idan waxaa loo baahan yahay qofka oo muslimka inuu xasuusnaado geerida, inuu xasuusnaado ayaa mar walba loo baahan yahay walaalayaal. idan hadaa marka aad adduunkan joogto wax qiimo ma laha, idan waxaa loo baahan yahay mar walba geerida xasuusideeda inaad badiso. walihada xasan albasri raximahullahu tacaala wuxuu leeyahay fadaxa almowt addunya فلم يصرف لذي لب فيها فرحا وما ألزم عبد قلبه ذكر الموت إلا صغرة الدنيا عليه وهان عليه جميع ما فيها. حسن البصر وحو ليه فضح الموت الدنيا oo geeri wuxuu ceeweeyay adduunyo ayuu markaa uu ceeweeyay buu yidhaahda falan yatsruk lidii lubbin fiihaa farxa, muusan ka tegin mid caqli markaa u saaxiiba dhexdiisa muusan ka tegin. wamaa alzama cabdun qalbahu dikra almowt ilaa saqrat addunyaa calayh wahaana calayhi jamiicu maa fiiha. addoon ma jiro oo qalbigiisa ku laazimiyey geerida xasuusadeeda marka oo ku laazimiyey ilaa saqratu dunyaa calayh wahaana calayhi jamiicu maa fiiha, oo waxaa ku yaraanaya adduunyada masaa'ibteeda iyo kurbadeedii ayaa markaa ku yaraanaya ruuxaas. idan waxaa loo baahan yahay mar walba geerida inaad xasuusnaato ayaa markaa loo baahan. idan waxaa loo baahan yahay mar walba inaad xasuusnaato geerida, inaad xasuusnaato ayaa mar walba markaa loo baahan. shumayd ibnu cajlaan wuxuu leeyahay allaha u naxariistay wuxuu leeyahay man jacala almowta nusba caynay lam yubaali bidiiqi dunya walaa bisaacatiha, ninkii ka yeelo geerida labadiis indhood markaa ninkii ka yeelo buu yidhaahday oo lam yubaali kama walwalaayo qofkaasi ruuxaasi bidiiqi dunya walaa bisaacatiha, adduunyada ciriirigeeda iyo waasacnimadeeda kama walwalaayo ayuu markaa uu leeyahay shumayd ibnu cajlaan saas buu yidhahday. idan warka waxaa loo baahan yahay qofka inuu dhimanayo inuu xasuusnaado, inuu maalin adduunkan uu ka tagaayo inuu markaa ogaado oo inuu og yahay ayaa markaa loo baahan yahay walaalayaal. walihada kacb alaxbaar wuxuu leeyahay man carafa almowt haanat calayhi masaa'ib addunya, oo qofkii garta oo aqoonsada geerida waxaa korkiisa markaa ku yaraanayo adduunyada masaa'ibteeda ayaa korkiisa markaa ku yaraanaya. inan adduunkan masaa'ibtiisii ayaa markaa ka yaraanaya, fidnadeeda ayaa markaa ka yaraanaya haddaa mar walba aad xasuusnaato geerida, mar walba haddaad xasuusnaato. idan waxaa loo baahan yahay marka walaala in la xasuusnaado geerida, in la xasuusnaado ayaa mar walba markaa loo baahan yahay. walihada allah subxaanahu watacaala muxuu yidhaahday kullu nafsin daa'iqatu lmowt wa inamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaamah فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. oo naf walba waxay markaa ay dhadhaminaysaa geeri ay markaa ay dhadhaminaysaa inamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama, maalinka qiyaama ajriyaalkiinii waa nila dhammaystiraya buu allah subxaanahu watacaala uu leeyahay. faman zuxziha cani nnaari, qofkii markaa laga fogeeyo oo laga dheereeyo naarta, markaa laga dheereeyo oo wa udkhila aljanna oo jannada markaa la geliyo faqad faas, xaqiiqdii wuu liibaanay
marka geerida mar walba inay ku soo haleelayso haday waalidka ay asibtay dadkaadi haday asibtay adeeradaadi haday asibtay oo goow waxay digniin u tahay ad ayaa marka digniin marka ay ku tahay idan waxa loo baahan yahay inaad mar walba aad xasuusnaato ayaa marka loo baahan yahay waliyaada Allah subhanahu wa ta'ala ayado kale oo farabadan wuxuu ku yiraahday كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون والله سبحانه وتعالى بيقول إلهي آيات كلمة محوك يرادي كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والله سبحانه وتعالى يقول إذا روح والبو نف والبو وحي لدمينيسا جيري أي لدمينيسا أو نف والبو وحي مركا لغو امتحانيا شرنا والغو امتحانيا خيرنا والغو امتحانيا أو محالغو امتحانيا فتنة بويرا الله سبحانه وتعالى فتنة درات امتحان درات أو خفكي وحي مركا لغو امتحانيا حوليه سايا مركا لغو امتحانيا caruurtii asiga uu dhalay ayaa marka lagu imtixaanay waalidiintiisa ayaa lagu imtixaanay adduunyadan xoolaha uu tacbaday kulli waa lagu imtixaanay idan marka qofka maxaa mar walba raba inuu xasuusnaado geeri inay wax walba ay ka dambeeyaan inuu marka xasuusnaado ayaa marka loo baahan yahay oo marka la qaadin wadadii ay qaadeen gaalada marka ay qaadeen wadadoodii ay la qaadeen oo marka ay ku farxeen Allah subhanahu wa ta'ala muxuu yiraahdaa markuu ka hadlay gaalada markuu ka hadlay muxuu yiraahdaa Allahu يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع الله سبحانه وتعالى يقول إذا الله سبحانه وتعالى قفك دونه قفك أسيق أوره وحو مركا أفيديا رزقي أيو مركا أفيديا قفك دون الله سبحانه وتعالى وكعريريا رزق إنسان الله مركاسو كهلي قال لي أيو مركا كهلي ومحوين وفرحوا بالحياة الدنيا أو وحي كفر حين نرشى الدنيا أي مركا أي كفر حين وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع عقر الله في أهان إلا متاع وح مركا راحة إسقير معاني إذا مركا أدونك وح مركا وح قيمة مالها نبي هاتود انتي أدونك وح قيمة مالها ولهذا النبي وجيريوذي markuu nabi calayhi salaatu wasalaam u geeriyoodina anaga dhamaanteen waxa nasuugaya geeri ayaa markaa nasuugay idan waxa loo baahan yahay markaa qofka inuu markaa iska ilaaliyo adduunyada fitnada inuu markaa iska ilaaliyo ayaa markaa loo baahan yahay markaa idan Allah subhanahu wa ta'ala taayo markaa oo markaa nagdiyaya markaa إلى تسأل مكان الباهي إلهنا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله qofka walaalkiisa khayrka tusiya wuxuu la mid yahay asigoo markaa sameeyay marka fariinta walaalkaaga muslimka ee gaarsii amaano ay markaa kugu tahay wabillahi